waxaanu maanta joognaa xaruntii degmada Daarsalaam annagoo ah dhakhaatiirtii xanaanada xoolaha ay ka socotay wasaaradda xanaanada xoolaha marka maanta waxaan insha Allah doonaynaa inaan furno xaruntii degmada Daarsalaam taasoo aan muddoonba qayb ka ahayd maamul dadajintii wasiirku maanta qaanaa ugu talagalay inuu maamulka dadajiyo marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa أنا واحد عافمات كحناض حولا كسعودة وحنا دي أدوق فرح سنة إن أديك لدادتي وما تصفي عنه بلا ما تتكديجان كنا يحولوا ذا كسن دونان قاد بنوس الدوينية وزارة دي مدح دي نشقوا ونكسروا في عن أي قبتين. waxaan joognaa xarunta Daarsalaam taasoo dib u habeynaya dayactir ku sameysay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga tan waxay kamid tahay dadaalada ay madaxda wasaaraddu ka wadaan dalka oo dhan ugu horeeyay mudane Saciid Sulub iyo agaasimaha guud run ahaantii xaruntan oo in muddo xidhnayd waxaan doonaynay maanta inaan farmasiigina u furno si ay u qabsato hawl maalmeedkeeda waxaan ku boorinayaa dhammaan xoolo dhaqatada degmada deegaanka inay ku soo xidhmaan xaruntooda xafiiskii xanaanada xoolaha oo muddo xidhnaa oo waxa loo wixii xoolo u baahnaayeen wasaaraddu u keentay waan ku amaanayaa wasaaradda talaabada fiican ay qaaday ee xoolaha aanu ku daweynayno aad iyo aad bay wasiirka iyo shaqaaluhu u mahadsan yihiin talaabo loo baahnaa baad qaadeen waxay xukuntaa meeshan 26 tuulo oo waqooyigeeda ilaa ceel sheekh bilaale cabdi geedi xoolaha waxaanu ku daweynaa intaa awal waxaanu heli jirnay markuu tiimku soo baxo ayaa haraaga waxa ereyadan ku buka aanu ku daweynin maanta waxaanu mahadnaqaynaa wasaaradda wasiirka agaasimaha shaqaalaha wasaaradda oo dhan oo talaabo fiican qaaday waxaanu ka kaaftoomaynaa diwalaantii waxaanu sheegaynaa xoolo dhaqatada wixii ay u baahnaayeen inay xafiiska xanaanada xoolaha degmada Daarsalaam ay ka helayaan halkaana hawshii la geynayay Hargeysa xoolaha buka looranayo riboodkii halkaana waa laga raysanaya أولاً وحنا مهندقنا إله سبحانه وتعالى إنه كلمية دقمة دارسلام يقول لك صوب بقدرنا مهندق إنه تيم كسر وسارة حنا حولها ورنتي آد وأنا مهندقنا تيم كسر ما أنتنا كاني إمكانيات كي أيوبا هنا حفيز كدقمة دارسلام حنا حولها ورنتي وحوجا حنا يدو أي قبوشياش يدوين كبا أي إعلان وحتى واحد ياد الله مهندقه وحن مر لبعض يمر صدحات بو مهندق يا وسيرك ورنتي تيم كيساسي ومحوها إمام دادجيت أسميه وكو أمر يعني ميل walba ka shaqeeyaan runtii degmadu waa degmo ballaaran waa degmo xoolo dhaqataa ilaa xeeb ilaa xagga hoose runtii mar walba waa wasaaraddaasi waxaan uga mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh mar walba nooga timaado mar walba tiim baa nala yimaada oo muxuu ahaa ka socda wasaaradda runtii maanta waxaanu helnay goobtii ay dawadoodii iyo waxoodii ay ka qaadan lahayn markay fiilka u baxayaan iyo marka kaleba waxa kale oo raajiceynaa insha Allah kulli intaaynu joognaa waa saddex qolo yar yar iyo muxuu ahaa farmasigii inaynu ku darno insha Allah soo dhaqsaha badan leh oo aan u sameeyno muxuu ahaa xarunta deyr maadaama waxa soo instrument alaabi taalo mas'uuliyad gaar ah anaguna iska saarayna wasaaradana waxaanu ka raajiceynaa inta in ka dhow inaynu muxuu wada shaqeynteenu ay noqoto runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqnaa markaste dadkan waa deegaan aad u ballaaran waxyaalaha aad xusida madan ee imika aan si xusuusto waxa kamid ah maalmo dhaweeda abaaruhu inagu dhaceen deegaanada ilaa Soonaag Salaxri ilaa Hawdka xoolihii ka yimid oo dhan barta yimiday runtii waanu dareemaynay culayska maalmahaana saarnaa intaasoo muxuu ahaa reer guuraa xoolo dhaqataan oo timiday oo muxuu ahaa dawooyin iyo xoolihii baa naga xanuunsanaya qasab waxay noqotay mar walba inaanu isku duwihii gobolka la xiriirno oo muxuu ahaa wasaaradii mar walba u qeeshano laakiin maanta taa alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ka maaranay shaqaalihii iyo muxuu ahaa agabkii way noo dhayihiin waxa dhibanoon muxuu ahaa inaanu muxuu ahaa deedna u sameeyno xafiisadana balaadhana biidnillah runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa tiimkaasi ay hogaaminayso hibaaq oo isku duwaha gobolka Murujeexa runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa tiimkaasi gobonimada leh waan ku mahadsantihiin sida muxuu ahaa aad noola shaqeyseen